بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كلنتي وعنا وناكسن دمان داودياشا qiimiga iyo qadarinta mudan oo halkaan naga daawanisaan waa Kaaramarda TV oo nooga barateen hadahan oo kale hawada ku kulano daawadeel barnaamijkeena maanta waxaan ku soo qaadanaa barnaamijkeeni Dhambaal ee toddobaadlaha barnaamijka Dhambaal waxay noo daadihinaya wariye Asad Cabdi Wali ee daawasho wacan السلام عليكم ورحمة الله وبركاته داوديال ومركلي برنامج كني دمبال برنامج كدمبال وحا مانتا مرتين نوغو ولالكين عبد الخالق شيخ عبد العزيز وكيل كأرمها الدينتا جالية سوماليا وغادينيا قبل كمينيسوتا أهنا وكيل كأورك أعصو أقابل نورث أمريكا marka waxaan leeyahay Cabdi Khaliq marka hore ku soo dhawo barnaamijka Dhambaal dhawahay waana maasantahay insha Allah taala okay waxaan rabaa marka hore inaan ku weydiiyo Cabdi Khaliq urka ucso inaad dadka aad bal u faahfaahiso waxa uu yahay ujeedadiisa iyo waxa uu taagan yahay الحمد لله على إحسانه وشكر له على توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أرتمرك وحنم علنيا ميدياها ساهن ميديا وأنا كجمع علنيا برنامج كان هذا مرتقدين دمبال وحن كالورتا سلامية ومدى الصومالية ده ندعونا إيسا مال كستا ويجوغان يدمان قف كستا وكوهلا اللغة الصومالية haddaan halkaa oga baxo ururka culamaa u diinka Soomaaliya Ogaadeniya waa urur halgamaa ah mudana soo jiray una taagnaa inay halganka ay onalef ku jirto ay maaragtay ay dhinac ka qabato meelaha uu ka khaldan yahay ka saxdo baraarujin dadka ay ka baraarujiso waxa ay u baahan tahay halgankan iyo akhlaaqdii diinta umada muslimiinta ilaahay ku manaystay inay ku ilaaliso halganka iyo inay dadka wax baraan dadka degan deegaanka inay wax baraan noqoto dugsigii quraanka noqoto ahadiistii noqoto culumadii diinka iyo akhlaaqda marka barnaamijkooda waa barnaamij laba nooc ah kii Allah subhanahu wa ta'ala waajib uga yeelayna way gudanayaan halgankana waxay rabaan inay ka leexiyaan hadii dhinac waxaan ilaahay raali ka ahayn ay kaga dhacaan inay garab istaagaan wixii ay ku saxsan yihiin ay maaragtay ku garab istaagaan waana culamaa u diin garab taagan okay aan ka dhaxgalo ururkan ma urur hadda la sameeyba maadaama sidaan ognahay xisbiga ama jabhadda onalef in muddo ay soo jirtay marka ma horay urur jiray miyaa ururkan arrimaha diinta mise waa urur hadda ku cusub weey ma waxa ka mid yahay ururkan ururada bulshada ee onalef ay leedahay sida ururada haweenka iyo ururada dhalinyarada ay ka mid yihiin maaha urur gooni u taagan oo ka baxsan maaragtay marka ma hadda ma wax cusub oo hadda la sameeyay ama soo horay ayuu hore u soo jiray wuxuu shaqadiisana intaas ay ahayd in ay maaragtay bulshada maadaama urur bulsho culamaa u diin ay yihiin inay maaragtay ay shaqada halganka dhinaca ka qabtaan okay aad baad maasan tahay Cabdi Khaliq waxaan rabaa inaan su'aalo ku weydiiyo su'aalahaas oo ku saabsan ururka aad ka mid tahay iyo deegaanka Soomaalida Ogaadeniya ama Soomaali galbeed qofba soo yaqaano marka waxaan rabaa su'aasheeda ugu horeyso onalef dadka qaarkiis waxay ku tilmaamaan inuu yahay urur qabiil ah iyagoo markaa cuskanaya ama soo qaadanaya ooda oo u taagan bay dhahaan ogaadeen marka arintaasi maxaad ka leedahay maadaama aad tahay nin mas'uul ah oo ka mid ah ururkaasi run ahaantii kulliba onalef waa urur xisbi ah oo muddo 35 sano ka badan halganka ku soo jiray Soomaalida hadayna is indhatiraynin onalef waa niman taariikhii Soomaalida hatta dawladii Maxamed Siyaad Barre ay soo jirta hatta naftarkeed ay la soo dagaalantay ay xirxiraysay waxa taa kala kugu daliila onalef waxa ka buuxa ummadda Soomaaliyeed qabiilada deegaanka degan qof kasta ku jira maamulada
ugu sarreeya ama ugu dhaxeeya ama ugu hooseeyana mid walba waxbuu ka hayaa waxaa kaloo daliil kuugu filan anigaan kula hadlayo qabiilka lagu tuhmaya oodan lagu tuhmayay ogaadeen aniga kama dhalan reeabsanaya ma aha ree adoona ma aha laakiin waxaan ku qancay mabda'a iyo halganka iyo xornimo udoonka iyo inay diideen in la dulaysto ayaan ku qancay waxaa kaloo kugu daliilku wuu fara badan yahay Soomaalida baana qancin mogiye maamuladii la soo dagaalamayay ONLF dhamaantood waxa mas'uul ka ahaa niman ayagana reer ka sheegta ayagana la soo dagaalamay haba ugu dambeeyay maamulka hadda ugu dambeeyay Maxamed Mustafa ka horeeyay ilaa la hagaajiyay xataa jeel loogu magac daray jeel ogaadeen marka waxyaalaha ugu xanuun badan oo halgankan ay ONLF soo aragto waxa kamid ah laba ruux oo naas wada nuugay xataa inay isku dileen isku laayeen midna gumaystaha u dhiibay midna jaajusnimo ku laayay marka ONLF wuxuu taagan tahay marka dhammaan inay ka xorowdo dawladda gumaysiga ay gacanta ugu jirto waxay u taagan tahay inay ummadda Soomaaliyeed ay midayso waxay u taagan tahay dignity iyo ardigeeda inay ku noolaato dhulkeeda ayadoon qofna ka cabsoonin insha Allah. Okay, wali su'aashaasaan ku dhex jiraa adigoo raali ah maadaama aad tiri adiga aad ka mid ahayn reerkaas ay dadka Soomaalida ay tuhunkooda u galay marka dadka iyaga ah maxaad ku qancin lahayd oo kale oo aad leedahay maadaama aad cadeysay oo aad tiri ururkaasi maaha urur family ama reer uu leeyahay waa urur u taagan ummadda Soomaaliyeed ee deegaankaasi ku nool oo runtii deegaankaasi cid walba ay ka dirsan tahay Soomaaliya oo dhan ay ku idashahay marka maxaad u soo jeedin lahayd asla dadkaasi maartay aad arintaasi ay aaminsan yihiin aad kaga bogsin lahayd waxaan leeyahay horta waa ilaahay mahadi waxaan hadii waxa loo taagan yahay uu yahay cirdi iyo sharaf iyo maal ilaahumay laba ruux oo walaalaha u istaagto adigu waxa waajib kuga ah inaad maaragtay aad u heeliso nabiga sallallahu alayhi wasallam wuxuu leeyahay unsur akhaaka zaliman aw madluman macnaheedu ma marka hadii loo batay oo reerka ogaadeen u bateen halganka anu waan ku amaanaya shaqa aan aniga qaban lahaa ay ii qabteen ma aha marka inaan halgankii ay ku jireen intaan tan carqaladeeyo magacaana waa magac gumaysi soo dhiibay ONLF waa qabiil waa magac gumaysi u soo dhiibay maamuladii soo jireenka ahaa si uu u maaragtay u cuna qabateeyo ama u carqaladeeyo halganka gumaysi diidka ah ONLF ay wali u soo taagnayd walina hadda wali u taagan tahay maantana inta uu marayo qalan iyo diblomaasi marka ummadda Soomaaliya wuxuu kula talin lahaa war waxa loo socdo waa adiga cirdigaada iyo sharafkaada waxaanu socono waa adiga cirdigaada sharafkaada haddaad maanta deegaanka aad rabto inaad ku noolaato adoon qofna ka baqaynin maxaa ka wanaagsan laakiin inaad habeen walba aad ku saaxato goormaa lagu yeeri doonaa goormaa lagu xiri doonaa goormaa gamgama lagugu samayn doonaa dhaqanka ka jira waa isla wada naqaanaa marka xaqiiqdu waxa weeye ONLF qabiil maaha waa halgan qofkii ku qancaana soo galaya maaha qabiila ku batay iyo qabiila ku yaraaday maaha qofka aniga hadda 5 sano ugu dambeysay aan ku qancay markii horeba aanan u arkay maaragtay waxyaalaha gumaystaha soo tuuray baa markii dambe waxay soo baxday meesha inay uulinba wax la sheegayo uu yaalo halgan dhab ah lana doonayo maaragtay in la gaaro mid kala dhoon ku dana ummadda Soomaaliyeed soddon sano Soomaaliya oo dhan ay burbursan tahay ama midan la gumaysta ha noqoto ama tii banaanka joogta ha noqoto waxa laga soo baabi'iyay dawladda Soomaaliya ee siyaad bar uu maaragtay gacanta ku hayay waa deegaankan waxaana sababay shacabkii oo maaragtay tabarna lahayn gumaystana gacanta ku hayay ayagaana soo abuuray waxa maanta baabi'iyay dawladdii hore ee siyaad bar marka waxaan leeyahay ummadda Soomaaliyeed dan waxa ugu jirta in dhulkan loo yaqaan Mogadini ama Soomaali galbeed ay wax ka xoreeyaan si ayagana u badbaadaan la dadka adiga ku soo gala dadka dariskaada gala annaga kugu soo socda marka annaga hadii maanta nala haysto adigana waa idin soo socda waa ka baxay ma sha Allah aad baad maasan tahay mudane Cabdi Khaliq waxaan kaloo rabaa inaan ku weydiiyo inaad dadka bal aad u sheegto muxuu yahay mabda'a ONLF muxuu ku saleysan yahay مبدأ ONLF
saan ka soo sheekeeyeyba waa niman xornimo doona jabhada xisbina maanta ah shalayna hadday qori hayeen maanta qalin hayaan ujeedkooda ugu weyn ee u socdaanna waxay rabaan maaha inay kursi qabtaan waxay rabaan ayagoo sharaf leh inay waddankooda ku noolaadaan ayagoo dembi gelin inaan dembi loo samaynin dhaqanka ka jirana waa naqaanaa waxay u taagan tahay xuquuqda iyo khayraadka waddanka yaalla inay ilaashato dhulkan waa dhul Soomaali oo dhan ka wada dhaxeeyo ninkan walaalkay hadduu istaagi waayo oon aniga istaagay macnaheeda ma aha inaan khaldanahay aniga waan ka dhiidhiyey waxaana ka kale kula dardaarmayaa inuu ka dhiidhiyo cirdiga iyo sharafka waa wax diin ah waa wax wadananimo ah qofka hadduu kugu soo hujuumana marka hore yaa cad iska leedahay hadduu diidana dee waad iska dhicinaysaa laakiin hadda waxaynu taagannahay maadaama Itoobiya heshiis qaadatay ay ogolaatay ra'yigan hadda aan ku hadlay aan aaminsanahay inaan dadkayga qalin iyo hadal aan ku gaarsiiyo inaan maaragtay ku gaarsiiyo maantana alxamdulillah meel fiican inoo maraysaa dad badanna waa ka dharagsan yihiin mabda'a ONLF iyo meesha u socoto okay mudan cabdiqaaliq waxaan kaloo rabaa inaan ku weydiiyo inaad noo sheegto bal sababta ay u aqbaleen dadka Soomaaliyeed ee Soomaalida ogaadeen ku dhaqan ama Soomaali galbeed sababta ay u aqbaleen gumaysiga waa su'aal aad muhiim u ah sax waana waxa maanta ilaa hadda ummadda Soomaaliyeed ama deegaanka ha joogto ama dibadda ha joogtay u baahan in la xalliyo taasoo ah in damiirka uu dhintay damiirkii ummadda Soomaaliyeed inuu dhintay oo ahaa in aadan gumaysi ogolaan qof muslimaad tahay xor tahay inaadan ogolaan ninkii dawladdii diyaar ah inay kula ganacsato kula shaqaysato waa gooni laakiin in maaragtay aad ogolaato in wixii doona laga sameeyo horta wax diintana inoo diiday waxaan soo qaadanayaa qisadii Nabi Muuse calayhi salaam Nabi Muuse intaana nabinimadii loogu yeerin waata aayadda ay leedahay wadakhala almadiinata calaa xiina gaflatin min ahliha fawajada fiiha rajulayni yaqtatilaani hada min shiicatihi wa hada min caduwihi fastaqaata macnaha Nabi Muuse wuxuu soo galay magaalada waqti la yaranasanayo oo dadka inta badan ay ka baqeen laakiin laba nin ay is haystaan oo mid waliba la duleysanayo la ihaanaysanayo kaasoo waliba mid asaga reerkiisa ah reer bani Israa'iil ka kalena uu qibti yahay laakiin maxwarkan u socdo waxa weeye ihaanada ninka lagu hayo ayuu Nabi Muuse u gagsan waayay Allahna wali ma amrin ihaanadii darteed uu ninkii marka uu wato meesha asoo ugu targelay inuu dilo feerbol hay laakiin ninka waa dhintay ujeedadeedu waxa weeye ihaanadu qofka islaamka ah kii gaalka ahaa ee weli aan islaamnimadii soo gaarin ee Nabi Muuse message-kiisa soo gaarin ba in la dulaysta loo diiday macaadallaahi adoo muslima oo xor ah inaad ihaano ogolaato waa arrin maaragtay aad maaragtay looga qurux badan yahay marka dadka Soomaalidu waxaan leeyahay laba kala saara inaad mujtamaca wada noolaataan oo dawladaha dariskina wada noolaataan oo aad ama ganacsi ha noqoto ama nolol ha noqoto waa wax la garto laakiin in wax la idin yeeriyo oo wax la idinka rabo la idin soo diro ama la idin soo qoro waa arrin aad maaragtay dhibaatadeeda leh waana waxyaalaha ay qayb ka tahay halganka ONLF waxay rabtaa ummadda Soomaaliyeed meel kastay joogto inay ayada isku tashato ما شاء الله aad maasan tahay waxaa la xaqiijinayaa dad shacab ah oo deegaanka lagu xirxiray waa deegaanka Soomaalida ogaadeen ama Soomaali galbeed dadka jigjiga lagu xiray magacyadooda ayaa na soo gaaray waxaana kamid ah Aydruus Aadan Fuaad Cabdi Cabdi Fataax Ahmed Cabdi Rooble Muxyidiin Cabdi Aadan Xasan Maleeste Maxamed Cabdi Dheere Warsame Aadan Goolid Aadan iyo Siraaji iyagana waxaa jira odayaal dhaqameedyo gobolka Doolo lagu xiray iyagana magacyadoodana waxay kala yihiin Deeq Cali Umar Aadan Cabdiqaadir Sanyare Xasan Xaashi Muuse Umar iyo Daawud Yuusuf iyo Qoodaar Xaashi
marka maxaad kula talin lahayd maamulka hadda jira ee xadgudbiyada geysanaya maadaama ay dadka ka daragsan yihiin maamuladii ku horeeyay wixii ay sameeyeen iyo meesha ay ku dambeeyeen marka maadaama aad tahay nin mas'uul ah maxaad kula talin lahayd horta marka hore waxaan salaamayaa madaxweyneyga Mustafa waxaan horta kula dardaarmayaa taqwada ilaahay labo waxaan leeyahay madaxweyne Mustafa maanta ummadda oo dhan adiga ayaa madaxweyne u ah adaa mas'uul noo ah ama xisbi mucaarad aan ahaano ama mid muxaafad aan ahaano waxa wax laga xumaada ah in dhaqankii soo jireenka ahaa ee ummadda Soomaaliyeed ee deegaankan degan lagu soo baabiyay inaad maaragtay wali daba socoto kaasoo ahaa qofka aan dambiga galin in la soo xiro maadaama walaalkii ama wiilkiis uu dambiga galay waxaana iiga muuqda hadda dadkan la soo xiray intooda badan in loo xiray dadkii mudaharaadka sameynayay ama ayaga dambi inay u arkeen inuu maamulka ku jiro u arkeen saxdad cabiray fikirkooda loo soo xiray dhaqankaasna waa dhaqankiina soo kala baabiyay maamulka waxaan kula talin lahaa inuu ka waantoobo qofkii dambi galay lagu hayo sharciga in la keeno kuwa hadda xiran naftirkooda xuquuqii sharciga leeyihiin in ayaga naftirkooda maxkamadda la keeno waxaan kaloo maamulka kula talin lahaa maamulka maanta jira waxaan leeyahay waxa uu iska joojiyo inuu ka shaqeeyo interest qowmiyada kale uu ka shaqeeyo interestka qowmiyada deegaanka uu ka shaqeeyo waxaa noo muuqda maamulkan in dhaqanadii hore weli wax ka wato oo uu ka shaqeynayo qowmiyad kale interestkeeda marka annagu Soomaali waan nahay dawladda Itoobiya waa laga mid yahay laakiin haddana ma aha inaan qowmiyadeena iyo danaheena aan ku hormarino dana kale afcaalahan iyo ficilladana saa u guracana waa ficillo ka turjumaya wax ay qowmiyad kale soo yeerisay oo loogu soo yeerinayo maamulka waxaan leeyahay shacabad haysataan idin jecel waxaad haysataan shacab idin hoggaansan qof in la hadli kara male inaad xuquuqdeennana raadisaan tiinana ilaashataan waan kula talin lahaa insha Allah taala waan gartay aad baad maasan tahay su'aasha ugu dambeysa oon ku soo xiri doono weeye aan soo gaarnay marka muxuu yahay xalka dhibaatooyinka aad ka soo sheekaysay ee aan ku soo weydiinay maxaad kula talin lahayd kula dardaaran lahayd shacabka Soomaaliyeed ee aad mas'uul ku tahay dhammaan horta ummadda deegaanka waxaan kula talin lahaa midnimo waa furaha kaliya ee aanu ku gaari karno dan kastoon leenahay khaasatan maamulka waxaan kula dardaarmayaa inuu midnimada shacabka raadiyo waxaan ayaantaan arkaynay ninkii shalayna soo xareeyay inuu maantana maaragtay una qanjaruufanayo asagoo ka turjumaya dana qowmiyada kale ka socda marka inuu midnimada raadiyo ONLF hadday xisbi tahay mucaaradna waa wax u sharciga u haystaan inuu la fadhiisto oo banaanadaas maaragtay maamulka uuna ka qalqaylin oo maamulka mas'uuliyiinta maamulka uu la fadhiisto dadkuna wada hadal wax ku wada fahmaan waxaan marka aan soo dhaweynayaa maamulka iyo mas'uuliyiinteena waa in la furo wado lagu wada hadlo oo midnimada lagu wada raadiyo labada dhinacba ayadoo mabda lagu kala duwan yahay haddana waxaa naga dhaxeeya wax badan baa naga dhaxeeya nabadgelyadii baa naga dhaxaysa khayraadka waddanka naga dhaxeeya oo aan nalagala tashanaynin waxyaalo badan baa naga dhaxeeya waxaa nagala dhaxeeya ardadeenna iyo banaanka iska wada taagan oo wax barasho haynin dadkii soo qalin jabiyay ardadii oo shaqo haynin waxaasoo dhan naga wada dhaxeeya marka waxaan kula talin lahaa midnimo in la raadiyo ilaahay quraanka wuxuu ku leeyahay waatiicu allaha wa rasuulahu wala tanaazacu fatafshalu wa tadhhabu rihukum macnaha ilaahay horta dad muslimiin aan dhamaanteen muslimiin baan horta in ilaahay ka cabsano rasuulkiisana aan ataan muranka iyo dooda iyo qayladan intii la joojiyo in maaragta aan la iskhilaafin oo isu yimaado taasa marka waxa lagu gaari karaa hididiile kasta oo maaragtay aan raadinayn nooc doonta ahaatee ama mucaarad ahaada ama muxaafad ahaada mar haddii midnimo la helo una jiro wax naga wada dhaxeeya oo la wada ilaashanayo
taasoo ay tahay weliba nabadgelyada khayraadka caafimaadka waxbarashada waxyaalo badan baa u baahan maaragtay in laga wada shaqeeyo maaha in qowmiyada kale danahoodii iyo lagu mashquulo shacabkii lagu cariiriyo wixii doona laga sameeyo qaar mas-uuliyiina la xirxiro waxyaala aada looga xumaado marka onlf waxay ka mid tahay axsaabtaas mucaaradka wixii intay karaankeeda unbay samayn kartaa laakiin waxa u baahan inuu shaqada qabto dadka isu keeno waa madaxweyne mustafa iyo maamulkiisa waxaana ka codsanayaa inay midnimadana u raadiyo dadkana isu soo dhaweeyo waana idin salaamaya dhammaan bulshada soomaaliyeedna waxaan kula dardaarmayaa war intaasoo sanaa la bahgelsan yahay furahanaga waa midnimo onlfna waxay wadaa midnimo in la midoobo marka intaasaan kusoo kaasi wuxuu ahaa cabdikhaalid cabdilcasiis oo ah wakiilka UCSO North America waa ururka culimada Soomaalida ogaadeynaya oo maanta marti noogu ahaa barnaamijka Dhambaal insha Allah intaan ku kulmi doono barnaamijkeena dambe waxaan idinkaga tagayaa sida ay nabadgelyo